active and passive voice waxaan sharaxaynaa active voice-ka waa soo aqalka xidiisa iyo passive voice-ka kelmad kasta oo qoran waa active voice waxaan bilaabana waxaan ku jirnaa tenniskii koowaad waxaa la yidhahdaa present continuous tense waa goorta joogtada socota formal of passive voice-ka qaacidada lagu helo passive voice-ka aan soo qaadano waa object dhibane plus lagu daray am comma is comma are plus being plus past participle of the verb past participle of the verb plus by plus subject active voice statement aan qaado tusaalaha kood aan qaadano asoo statement ah wuxuu yidhi I am learning English I am learning ana waxaan baranayaa English ayaan baranayaa she is selling waxay sii gadaysaa her skirts iyadoo waxay iska iibinaysaa goonooyinkeeda you are greeting me adiga waad islaamaysaa passive voice waxay ahayd I am learning English change to passive voice bedel object waa English is being learned by me aniga ayaa baranaya English is being learned by me passive voice waa kaas marka qaabkaas loo bedelaa haye her skirts are being sold by her goonooyinkeedii iyada ayaa iska sii iibinayso wuxuu yidhi you are greeting me ayay ahayd I am being greeted by you adood islaamaysaa active voice in question asoo ah active voice oo weliba question ah am I learning English aniga ma baranayaa Englishka aniga ma baranayaa question mark is she selling iyada ma iska iibinaysaa her skirts goonooyinkeeda miya iska iibinaysaa are you listening adiga ma dhegeysanaysaa adiga listening ma dhegeysanaysaa to BBC idaacada BBC ma dhegeysanaysaa passive voice in question or question wata is English be learnt by me is Englishiga be learnt by me aniga ma baranayo Englishka are her skirts goonooyinkeeda being sold by her iyada miyaa iibsanayso is BBC-da been listening by you ma dhegeysanaysaa BBC-da